بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن وعن ميل كستا دونك جوجتان كسو دوادا برنامجka فكري aragti oo ah barnaamij taxanaha oo bixi doona dhamaan bisha Ramadan mowduuca koowaad waxaan uga hadli doonaa ahmiyada ay leedahay salaada iyo qofka bini'aadanka ah salaada faa'iidada ay u leedahay طبعا ka hadli mayno ahkaamta salaada iyo shuruuda salaada waxaanu ka hadli doonaa macno aad iyo aad u weyn ay ku dheehan sirta salaada waxaana arintaasi nooga biyo dhici doona walaalkeen Cabdullaahi Shafii Cabdullaahi aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku sharfo waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aal ah waxa ku noolnahay wadan aad iyo aad u mashquul badan sidaad ogtahay stresska ayaa badan waxa badan walwalka iyo walbahaarka marka doorka ay salaada ku leedahay dejinta qofka bini'aadanka qalbigiisa maxay tahay xogaa yar ma noo sheegi kartaa adigoo mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبد ما ستة الناصر والله الله دقيقة دعوة يا شباب رنتي برامج كان فكري أركتنا وبرامج هذا حساب بدن وسود وين يو إن موضوع إنه كل بلابة إنه ويا موضوع الصلاة أنا رنتي أيضا نفكر وارن قيمة هذا له موجنا ينا أهمية الصلاة يصير إنه صلاة أهمية ويلينه runtii walaal salaadu qofka bini'aadamka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu abuuray oo dunida keenay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baahihiisii jireed ee qofku u baahnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu u daboolay oo macnaheedu tahay adduunka wixii uu ku cuni lahaa oo dhan buu Ilaahay uga soo saaray wixii cabitaan muxuu ahaa u baahnaa buu uga soo saaray wax alla wixii baahiyo ahayd ee noloshiisu u baahnayd ayuu ugu diyaariyay إلهي سبحانه وتعالى فضلجيسا ينحريستيسا وحكليته إلهي سبحانه وتعالى قفك بني آدم كأسميي باهدي اجتماع أما السوشيال محوها نيرسكي باهيه قفك بني آدم كلجي من ولان كري باهيه ومجتمع ولن ولان لا يعد ويهشل لها أيو إلهي سبحانه وتعالى النعمة دي وبني آدم كسي هذا يحاس نقطه هذا مقارنة إذا نقطه عيد وقفك ويهشلو أيو أسميه لكن باهيها بني آدم أنت أسكلي معها بني آدم وحو باهيها إن لهاجو أو نولشيسا سيدو أصلا يسان لها لو هاجو سيدو أولا أكسنا لو هاجو سيدا درادد أيو إله سبحانه وتعالى وحو أسو دجيي كتبتا وحو أسو دري أنبيوي كتبتا إيا محوها وإله سبحانه وتعالى سو دجيي إيا فريمها وأنبياديسا سوا فري si bini aadamku nolol wanaagsan adduunka ugu noolaado waxa uu dhaxaad u ahaa tiir dhaxaad waxa uu ahaa salaaduna waa sir u baahan in la fahmo runtii arinta aniga mowduucan inaan si gooni u xiiseeyay igu keenay waxa weeye waxaan baarayay muddo barbaarinta carruurta sida ugu wanaagsan ee carruurta loo barbaariyo markaa waxaa iga soo baxay mowduuca sidee waalidku nolol degan u helaa si uu carruur degan u soo saaro fikirkii iyo baaritaankii awaday baa waxaa iga soo baxay sidee salaada aynu ugu kaalmaysanaa inay ina dejiso qofka ay dejiso si uu qofku xasiloon u helo ilmihiisana si degan ugu tarbiyadeeyo runtii arrintaa fikir dheer bay igelisay waxaanan ka eegay dhinacyo badan waxaan ka fekeray bal inaan baaritaan dhaba geliyo oon tijaabo ku sameeyo qofka raad intee leeg bay noloshiisa iyo maskaxdiisa ku reebaysaa qofka marka uu salaad degan oo khushuuc la tukado iyo muxuu ahaa farqiga u dhaxaynaya waxaan la xiriiray nin Soomaali engineer oo arrintan muxuu ahaa dhaqdhaqaaqa maskaxda qalabkan baara bartay anigoo hawshii ku dhex jira ayaan Ilaahay fadligii waxaan helay waxaan internetka ka helay barnaamijkii oo kale kii aan ku tijaabadii aan rabay inaan sameeyo oo uu sameeyay wariye iyo barnaamij soo saaray Sacuudiyana oo barnaamijkan caanka ee luqadda afka Carabiga ku baxa ee la yiraahdo al-khawaadir mawaadiic badanna uu ku eego qayb kamid ah ayuu arrintan uga soo qaatay qaybtan ayaa Ilaahay fadligii helay waaba intii wixii aan rabay inaan sameeyo
oo aan hadda idiin soo gudbin lahaa. Marka hadda waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo arrintii tijaabadii uu Axmed Shaqayri sameeyey oo ahayd wixii aan ka fekerayay inaan anigu sameeyo. tijaabada uu Axmed Shaqayri sameeyey waxa weeye inuu isbarbar dhigay qofku marka uu salaad aan khushuuc lahayn tukado iyo marka uu salaad khushuuc la tukado isbedelka raadka ay maskaxdiisa ku reebayso. waxa uu markii hore tukaday salaad aan khushuuc lahayn sidaad arkaysaan oo sida aynu inteena badan sameeyno salaad uu qofku fikir badan iyo hawlo badan adduunyo iyo xoolihiisii kala xisaabanayo shaqadiisii ilmihiisii hawlo adduunyo isaga jiro una maxaa la yiraahdaa uu tukanayo oo quraanka akhrinayo laakiin maskaxdiisu ay mashaakil mashquulsan tahay. waxa ka soo baxay mashiinkii weynaaye fMRI baa la geliyey waxa la eegay dhaqdhaqaaqa maskaxdiisa qaybaha maskaxda active-ka ah firfircoon ee shaqaynaya. waxa la ogaaday oo tijaabadii ka soo baxay qofka inaan wax isbedel ah uusan jirin marka uu salaad khushuuc la tukado salaad aan khushuuc lahayn marka uu tukado iyo intaanu tukanba wax isbedela maskaxdiisa kuma reebayso. sidoo kale qaybtii labaad ee tijaabada la guda galay salaad khushuuc la ayuu tukaday ragcadda koowaad ay kaliya ayuu kaamirada shiday kadib kaamirada uu iska damiyey si uu sida ugu maxaa la intuu awoodo uu salaad khushuuc loo tukado. salaadii khushuuc ahayd buu tukaday sidoo kale mashiinkii weynaaba fMRI baa la geliyey natiijadii ayaa soo baxday. natiijada soo baxday waa arrin mucjiso oo ah qofku marka uu salaad khushuuca tukado isbedel weyn baa maskaxdiisa ku dhacaya. waxaa la isbarbar dhigay salaada intaanu tukan iyo marka uu tukaday isbedelka maskaxdiisa ku dhacay. waxaa soo baxay walaalayaal in qaybtan aynu ka fikirno ee la yirahdo frontal cortex-ka oo maxaa la yirahdaa qaybta aynu ka fikirno wax ka qorsheyno hawlo badan ka samayno in marka qofku uu khushuuc ku tukado qaybtaasi ay degayso firfircoonadu ku yaraanayso xasilooni qofka uu helayo. waa arrin mucjiso ah runtii waa mid aynu u baahnayn. waxaa kaleeto soo baxday qayb maskaxdeena ka mida oo naxariista qaabilsan in maxaa la yiraahdaa iyaduna ay firfircooni badan helayso oo qofka ay naxariistu ku badanayso. iyaduna waa mid aynu u baahnayn. salaad baynu tukanaa waa la isdilaa naxariis ma jirto. salaad baa la tukadaa waa la isdhacaa naxariis ma jirto. sidaa daraaddeed arrintaynu u baahnayn ahayd inaynu deganaan helno oo qofku deganaanu helo oo weli xilliga kan aynu noloshii secondkii saacad uu noqday oo la eryanayo oo noloshii oo dhan ay ciriiri noqotay waxa keliya aynu weheshan karno ay tahay salaada oo marka salaada aynu tukanno aynu bal ugu yaraan si khushuuc ku tukanno. masaajidkaynu tagaynaa waynu tukanaynaa ama gurigeenaynu ku tukanaynaa waynu tukanaynaaye si aynu nolosha macaankeeda iyo raaxadeeda u dhadhansano inaynu salaada khushuuc ku tukanno. arrintaasi waa arrin runtii aad iyo aad ii cajab gelisay markii arrinta aan helayna oo aan nafteyda ku dabaqayna oo aan isku dayay salaadaha intaan awoodo inaan khushuuc ku tukado runtii isbedel weyn baa nolosheeda ka dareemay. جزاك الله خيرا runtii aad iyo aad ayay qancisay jawaabtaada waana ku faraxsanahay waxaana filayaa daawadayaal badan inay ka faa'iideen jawaabtaada. haddii aan su-aal halkaas kala soo dhexbaxo waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo salaada iyo go-aan qaadashada xiriirka ka dhexeeya. waxaad ogtahay qofka bini'aadanka inuu mar walba ku qasban yahay noloshiisa inuu go-aan qaato marka salaada saameyn ma ku leedahay go-aan qaadashada qofka bini'aadanka? waa run walaal sidii aan markii hore tilmaamay su-aashaadii hore sidii aan uga jawaabay ahayd in marka aynu salaada khushuuc ku tukanno in qaybtan frontal cortex-ka oo qaybtaynu go-aanka ka qaadanno ay maxaa la yirahdaa degayso. marka ay degto oo xasiloonaato waxaa fududaanaya qofku inuu go-aan saxa qaato. qofku marka uu walwalsan yahay oo stresska uu qabo qaybteena frontal cortex-ku way adag tahay in go-aan saxa aad ka qaadatid waayo fikrado tiro badan ayaa saas ugu dhex yaacaya. sidaa daraaddeed inaad go-aan saxa qaadatid way adkaanaysaa. sidaa daraaddeed
salaada oo aynu khushuuc ku tukanaa waxay inoo sahlaysaa inaynu nolol saxa inaynu go-aan saxa cafwan raalli hada inaynu go-aan saxa qaadano sidaa daraaddeed qisada maxaa sirta walaal ku jirta ma garanaysaan marka uu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam uu ina barayay markaynu arrin muraad leenahay marka arrin ina welwelinayso inaynu salaatu istikhaara tukano ma garanaysaan macnaha ku jira qofku marka uu salaada tukado frontal cortexka qaybtan way degaysaa welwel la-aan baad ahaanaysaa go-aan saxaad qaadanaysaa meesha adigoon salaad khushuuca tukan ama noloshaada caadi isaga jira ee adkaanaysa go-aanka saxda inaad qaadatid marar badan marka aad u baahan tahay go-aan saxa oo noloshaada adduunye iyo aakhiraba anfacaya inaad qaadatid walaal laba ragcood salaada tuko ajar aakhirana waad helaysaa noloshaada adduunyana way ku hagaagaysaa sidaa daraaddeed go-aan qaadashadeenna saameyn badan ayay salaadeenna ku leedahay الله runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa cilmigan dheeraadka aadna siisay waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aal runtii aad iyo aad muhiim u ah waxaa jira walaalo badan oo aan salaada tukanin dadka aan salaada tukanin maxaa ka maqan salaada macaankeeda muxuu yahay ma isleedahay dadkaasi waxay miisgareeyeen ama ay waayeen arrin aad iyo aad muhiim u ah noloshooda su-aashaas haddaa mid kale sii raacsado waxaan jeclaysan lahaa dadka siday salaada ku daa'imi karaan dad waxaa jira mar tukada mar ka taga marka haddii aad talo ama fikrad fiican aadna siin kartid ilaahay subxaana wa tacaala ku sharfo aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa runtii qofka salaada aan tukan waxaanu leenahay walaal waxaad tabaysaa annagu kuma aadaynayno laakiin waxaan leenahay walaal waxaad tabaysaa nicmadii adduunyadoo dhan waxaad waayeysaa آخره واحد إلهي سبحانه وتعالى هرتيس كم مدن يسد إلهي أم بكرنا تا ما هولا قلينه لكن ولا واحد تبي سار راحة الدنيا ذا واحد تبي سار نعمة الدنيا ذا وأرهن أن دون إنه ولا على سيدا نهارات المعنى قفك بن آدم كأهي بن آدم كله حرادين يعني ولاش إنه حسنوني يراحة يفرحت كنا ولا سيدا كري ولا اللي جاري كرا وحويه صلاة أو إنه كنت كنا خشوع واحد أركتين حلقا casriga xilligan aynu nool nahay waxa weli qofka wadamada qarbiga ama westernka ku nool Yurub iyo Mareykanka ayaa wuxuu arkaa in lacaga badan lagu bixiyo baasha la yiraahdo yoogada oo qaab salaada oo kale oo qofku uu isku dajinayo inuu fikirka maskaxdiisa ka reebo si uu deganaan u helo si raaxo u helo sidaa daraadeed walaal inagu waxaynu haysanaa salaadeeni oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajarna inaga siinayo aynu ka helayno muxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala janno aynu ka helayno xasilooni adduunyo sidaa daraaddeed nolosha adduunyada walaal maalku ma keeno xasilooni mana keeno farxad waxaad ogtihiin walaalayaal wadamada ugu hantida badan leh ayaa isdilka qofeed qofku inuu naftiisa ka quusto sida wadamada Japan iyo Scandinavianka iyo meel badan oo Mareykanka qof intuu naftiisa ka quusto inuu isdilo waxay ku badan tahay wadamada qaniga wadamada sawaalka qofna isma dilo oo faqri iyo gaajo isma dilo waayo ma keento maalku sacaado iyo raaxo ma keeno dadkani noloshii maalkii bay heleen sacaado iyo farxad bay u keen weyday daroogo isku mudeen farxad iyo waxay u keen weyday deganaan nololeed waxay aadeen inay muxuu ahaa budiista galaan diimo badan galaan raaxay u keen weyd laakiin walaal inaga taasaynu haysanaa oo salaadeenu ina siinayso taasaana kaa maqan bini aadamku dhan uu raadinayo salaada inaadan tukan waxa keenaya walaal sawirka khaladkaad ka haysatid salaadu ma aha culays ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaad salaad tukatid inaadan salaad tukan milkigiisa waxba uma kordhinayso waxba ilaahay kalama maqnid laakiin adigaa waxaad waayeysaa raaxadan tirada badan nicmadan weyn ee bini aadamku uu raadinayo ayaad waayeysaa qofka salaada aan tukan walaal waxaanu leenahay bal kaale oo tuko oo salaad khushuuc ku tuko waxaan kuu damaanad qaadayaa ilaahay fadligiis ilaahay amarkii inaadan dib dambe maxaa la yiraahdaa aadan salaad la'aan aan noqonin qofku siduu salaada u joogteyn karaa walaal qofku salaada wuxuu u joogteyn karaa waxaan oranaynaa bal horta salaadaada kuugu horeysa oo hadda aad tukanaysid salaad khushuuc ku tuko salaada khushuuc markaad ku tukatid waxa la hubaa macnaha salaada kuu baxaya raaxadeeda dareemaysa qof
waxaynu u samaysannahay walaal psychologically ahaan waxaynu u samaysannahay waxaynu jecelnahay waxaynu raaxadeeda dareemayno inaynu joogto inaynu jecelnahay wixii aynu dareemayno inay culays tahay oo dhib inagu tahay oo mashaqo inagu tahay waynu ka cararnaa nafteenna sidaasaynu bini aadam u samaysannahay marka aad salaada tukatid oo aad dareentid raaxadeeda oo aad dareentid macaankeeda oo aad dhadhansatid waxa la hubaa inaad salaad la-aan ahaanaynin oo salaada goormaa salaadii la gaaraya xilli kasta oo salaada lasoo galo aad u degdegaysid salaada inaad tukatid marka waxaan ku oran lahaa oo taladeedu tahay walaal qof kasta oo raba inuu salaada joogteeyana kula talinaya isku day inta aad tukanaysid inaad khushuuc ku tukatid waxa la hubaa inay noloshaadu hagaagayso adduunyo noloshaada aakhiro hagaagayso muxuu ahaa raaxa adduunyo aad helaysid maxaa la yiraahdaa noloshaadu dhan hagaagayso salaadan aad joogteynaysid waxaan kusoo khatimayaa walaalayaal dhammaanteen macnaha salaada aynu ka haysanno aynu saxanno salaadu culays ma aha culays ina saaranayno tuurayna ma aha salaadu waa raaxo waa nicmo mar intaynu ka maqannahay uun baynu culays dareemayna laakiin iyada markaynu ku dhex jirno waa naxariis iyo raaxo sidaas daraaddeed ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii arrini kusoo korodho arrin welwelgelisa kusoo korodho uu salaada ugu degdegi jiray marka sidaas oo kale ayaa waxaa lainooga baahan yahay inaynu salaada u degdegno جزاك الله خيرا آدي هذا يعني أقول قنعي جوابتها بارك الله فيك إلهي سبحانه وتعالى أن أنفعه سؤال شو أقول بيسا أن أستاذ عبد الله وحربنا كويديو إلهي سبحانه وتعالى وحلي استعينوا بالصبر والصلاة محيتها سرتا يا معناها كدوغن إن صبرك يا صلاة لك هالميسدو أن صبرك يا صلاة دنا محي قفك بلا آذن كأنه ليش يسكو كورلين كران وصح ولا إله سبحانه وتعالى وحليه قرآن كيسا واستعينوا بالصبر والصلاة صلاة إيو صبرك أو كالميسا محي وحكستا أيام وحين أباهنا إنو الصلاة إيو أو كالميسا نو محل هذا صبرك إيو صلاة واللبا توليس واللبا محل هذا قلب واللبا عقب وإنه استعمال إنه نلوشا الدنيا إنه نوسحنتو تي آخرنا إلهي سبحانه وتعالى أين رجين إنه جندي سكلنا سيدا درادد نلوش الدنيا ده معان كيدو وحوية كالميستشهد الصلاة هي كالميستشهد الصبر صبر كولا الوحوية حريرك أديك إيه بني آدم كيدو نحمرية حريرك أديك إيه عباداتك إيه هوشة محوها عبادات إلهي كو واجبية سمين تيدا أرمها صور أن دولقاد بيبهين دولقاد لأنا نلوش مجرسو سيدا درادد ayaynu salaada iyo soonka walaal salaada iyo cafwan sabarka ugu kaalmaysanaynaa dhammaan nolosheena oo dhan si aynu adduunka ugu noolaano nolol raaxa leh marka walaal muxuu ahaa ballanteenu dhammaanteen waxa weeye salaadeena aynu khushuuc ku tukanno ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun salaada waxa weeye waa damaanad حق إلهي كتمي قفك صلاة كتكذا محوها خشوع إنه الليبان الدنيا الليبان آخره هلي ولو وأنا وحين أباهنا ولا وحين أباهنا والليبان الدنيا الليبان آخره ليبان الدنيا الليبان آخره وحكو جرتا ولا إنه صلاة خشوع كتكنا أديات بعضهم بحسنتها ولا هذه الدعوة يا شباب السلام يا وحنا رجينا يا إلهي سبحانه وتعالى إنه نقدر كوا خير كسكو كلمة يستا حماهنا إسكريبا صلاتنا خشوع كتكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن آدي هذا يوم هاي أستاذ عبد الله إلهي سبحانه وتعالى خير كسيو وحرجينا يا برنامج كنا كهذا كهشن وحاول لك عدسنا إن هذا ما أنتو دين استيفا فيان تاني كلنتي وعن إيوه برنامج عصب فكري عرقتي آدي هذا يوم